الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaanyeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah woofiyo, inta baahan Allah deeqooyinta bogta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka, diinta, dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. waxaan rabaa inaan horta nin ani yiri baa leeyahay rag iska reeb. media waxaan u soo galay difaaca dalka iyo diinta iyo Soomaalinimada. waa filay xagasho badan inay iga imaanayso. asxaabtayda culimada aan isnaqaan oo dhan rag badan oo igala hadlay markii hore waxay oran jireen iska daa, dad baa ku maagaya, waa lagu xagxaganayaa. waxaan rabaa iyaga iyo qaar shalay xataa soo wacayay oo arrintaa igala hadlayay inaan u sheego war anigu waa ku raaxaystaa in lay maago, everyday baana lay maaga, meel walbaan ku jira, xataa meme baa layga sameeyey. I enjoy. Why? ku salaadaada iyo sadaqadaada iyo xajkaaga iyo zakadaada iyo soonkaaga ajarkoodii baa siinaysaa anoo iska hurda. anoo aan soomin baan soonkaaga qaadanayaa. baashaal cay iyo aflagaado iyo wax alla waxaa rabta iga sheeg. laakiin hal masalaa waan caddaynayaa. haddii dadkaan u jawaabo waa dadka madaxda ah, dadka mansabka haya, dadka culimada ah, dad qof macno ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed. Sometimes qof platform haysta waan isleeyahay dad baa ku xiran, dadkaas ku xiran difaacidooda iyo ilaashadooda baa keenaysa inaan ka hadlo wiilal yaryar oo meelahan laysku haysaystay baryahan. arrintaasa keenaysa ninkii dad badan baa ku xiran, dad baa dareemaya oo fahmaya inuu waxa uu sheegay wax fiican yihiin. waxaa dhici karta in khalad yimaado. marka taas waa markaan qofkaa la hadlayo maaha inaan isyaraynayo oo qofkaas isku level aan inaan gaarno oo hoos ugu dago aan ujeedadeedu ay tahay maaha. may waxa weeye qofkan dadka maadaama public uu yahay oo wax publica uu ka hadlayo, waxaa publica ah haddii ay saddexdaa shay oo aan difaacanaya midkood ay weerar ku tahay. tusaalaan idin siinayaa wiilkan yaroo iftin waxa uu weerar ku qaaday ummadda Soomaaliyeed ee degan qurbaha. dadka Soomaaliyeed difaacoodana waa waxyaabahan meesha ugu jiro, inaan wax u bayaaniyo, wacyigooda inaan kor u qaado, iyaga inaan wax baro, iyaga inaan difaaco. that is waxyaabahan meesha ugu jiro wey. weerarkii iyo dagaalkii uu ku soo qaaday falcelin aan ka falcelinayay ahay, maaha inaan wiilka nabcahay iyo inaan dhibaato la jeclahay iyo inuu meel daran ka dhaco. sidoo kale markaan ka hadlayay gaalaysiinta, qof platform leh oo leh hebel waa gaal, halkan waxaan u joogno dalka iyagii u aadi weynay, ugu noolaan la'nahay laba shay weeye. waa siyaasi caadaqaato ah oo dabadhilifa oo tuug ah, iyo wiil qori la ordaya oo leh dadku waa gaalo, oo markuu dhiigooda marka hore intuu diinta ka saaro, markuu diinta ka saaro kadib dhiigooda banaysanaya. waxaa halkaa u joogna intaa wey. labadaas musiibo, corruption iyo takfiir baan u joognaa. inaan difaaco marka masalada takfiirka waa masalo diina, waa waajib, waa waxaanan ka gaban karin, waa waxaan meesha u fadhiyo. ilaahay subxaana wa tacaala amar buu siiyey qofka caamada ah. dadku waa laba nooc, caamo iyo culimo. qofka caamada waxay fasalu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun. war haddaadan diin garanayn ka fariiso. adigu malihid takhtar haddaad tahay, engineering kama hadashid iyo physics, maxaa ugu farabaxsanaysaa marka? ama lawyer kama hadashid iyo legal proceedings, maxaa diinta ilaah ugu farabaxsanay? saa ugu takhasustay dhakhtarnimada baa dad ugu takhasusay diinta islaamka, iyaga u daabaana lagu yiri. labada qoloba ilaahay waa u dhaartay oo waa handaday. dadka diinta yaqaan oo qariyo culimada ah wuxuu ku yidhi alladina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayanahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allahu yalcanuhum allaacinuun. dadka diinta ilaahay qariya kadib markaan caddaynay oo culimada ah, ilaahay baa lacnada, malaa'igtaa lacnada, dadkao dhan baa lacnada. malcuun weeye macnaheedu waa intaa. kuwa caamada ah oo diinta soo gala oo iskaga iyagu ka jawaabaya waa gaal iyo waa xalaal iyo waa xaaraan la taagan, dhagaysta idinkana waxaa leedin yiri walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalun wa hada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib. haddii aad sheegtid shay xalaala ama xaaraana wuxuu ahaa waxaan ahayn ku sheegtid,
beenaale adoo ah oo ilaahay ku been abuuranaya ogow inaadan horta liibaanayn marka koowaad maxaa kugu xiga mataacun qaliilun walahum cadaabun aliim adduunka wax yar ha ku raaxaysto aakhire cadaab adag oo daran ba gelinayn qofkii marka caamo ah oo soo gala oo gaal weeye dadka ula soo istaaga adeer wuxuu saacidayaa wixii aanu halkaa u fadhinay oo dalkayagii u aadi weynay dhibaatadii halkaa nagu haysay bay qayb ka imise dhalinyaro baa ku ta'asuraya oo iyaguna marka qofkay nabcaystaan iyo qofkay isqabtaan iyo qofkii fikrad ku khilaafaba waa gaal dhihi doona waxaan rabaa inaan idinka dhaadhiciyo dad baa waxay yidhahdeen cudurdaar male ninkaani aan idinka dhaadhiciyo bal horta marka shiikhu uu masale fatwoonayo iskama fatwoodo halkaa markaa masale diine ka fatwoonayo ha u malayn inaan si sahlan oo easy isaga dhahayo takfiiru cayn diinta islaamka horta waxay ka qabtaan idin baro nin baa gaal ah baa wuxuu la dirirayaa saxaabadii rasuulka sal alla ly slam usaama ibnu zayd oo ahaa nin uu nabigu jeclaa xibu rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam ahaa oo hadal uusan ka diidi jirin oo loo diri jiray markii nabiga la raba in arrin laga dhammeeyo baa wuxuu yidhi waxaan aragnay ninkaasoo markii la damco in la dilana waa ku gabanaya tawxiidku ku gabanaya markii la damco in ma garanaysaa laga tagana dagaalkiibu hore ka wadaya oo dadkiibu laynaya marka aniga nin kalaa ku keenay buu yidhi markaan damcnay inaan dilno buu ku dhawaaqay tawxiidkii waa ka istaagnay mar kaloo haddana isagiyo dadkii laynayaan aragnay markaan ka tagnay waa raadsaday oo inta ay soo dabagalay baan madax ka gooyey markaan marka ku keenay buu sidii oo kale tawxiidka ku dhawaaqay isagoo tawxiidka ku dhawaaqayaan sulka hordhigay nabigu u yimi sal alla ly slam ninkaasoo gaal maaha wuxuu yidhi tasaturan buu ulahaa kelmadda inamaa kaana yaquuluhaa tasaturan wuu ku gabanayay dhufays buu ka dhiganayay si looga daayo seefta markii uu jaani salaana dadku leynayay nabigu sal alla ly slam hadalladii ku yiri baan idiin sheegay ashaqaqta qalbah warma qalbigiisaa jeexday oo dhexdiisa waxa ku jira aragta arrintaasi waa qeyb rabbi unbaa yaqaan wuxuu kaloo ku yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah war markuu kelmadda ku dhawaaqay baad dishay kadib wuu ku celceliyey nabigu sal ly slam wuxuu ku yidhi famaada tafcalu bilaa ilaaha ila allah ya usaama berri maxaad ka yeelaysaa kelmadda laa ilaaha ila allah hadda waa nin gaal ahaa hadalka uu dhahayana ujeeddo kale wuu ogyahay inaan la dilayn hadduu kelmaddaa yidhahdo kadibna hawshiisa iska wadanaya baa la yidhi maxaa u dishay isagoo kelmaddaa leh usaama wuxuu yidhi waxaan jeclaystay inaan gaal ahaan lahaa maalintaa ka hor oo aan hadda diinta soo geli lahaa sidaasay u adag tahay kelmadda takfiirka ah in qof lagu yidhaahdo horta kelmaddaas intaas baan idinku bayaanay markuu shiikhu hadlayo axaadiis badan iyo aayaad badan iyo waxaadan garanayoo badan buu ogyahay isagaana ay waajib ku tahay inuu arrintaa bayaaniyo marka uu sheegana haddii uu ku gafo oo kas ugu talagalo oo xumaan uu ku fasiro ahlunaar wey adiga dhib kuu yaal maha marka u daa culimada u daaya arrimaha diinta faraha ka qaada dhalinyarooy daaya diinta ha iska dhiginina shiikh oo hayse soo qallajinina markii inta lagu qabto lagu saxo lagu yidhahdo war jaahil baa tahay ka fadhiisana indhaha soo xanjaysan oo hayse soo cammayn waxaa ku soo haray markaan anigu leeyahay kelmaddaas ninkaas uu sheegay waa gaalnimo macnaheedu maaha hebel waa gaal kelmaddaa gaalnimaa sidaa generaalkaa baa la ogolyahay kelmaddaasi waa gaalnimo kelmaddaasi waa istihzaa kelmaddaas waxay ka mid tahay tobankii shay oo lagu gaaloobayay bay ka mid tahay waa kufri laakiin qofkaas laysa kullu man waqaca fi lkufri yasiiru kaafiran culimadoo dhan baa qaatay xaggee idinka marayaa warkaas qof kastoo kufri ku dhaca ma noqonayo kaafir maha qof kasta waxay rabtaa dariiqeeda culimadeeda u daaya culimada faraha uga qaado masale adag wey haddaad diidid hadda go ahead isku qallaji maxaa ka faa'iidaysaa inaad adigu diintaada weydid oo adigu gaal noqotid hadduu isagu gaal noqon waayo qof baa qalbigiisa ku jirtaa kuleh muslim baan ahay markaad leedahay gaal wey waxaa kuu soo haray handadaadda iftin baa wuxuu igu soo handaday laba shay buu marna wuxuu yidhi argagixisaa tahay f b i na waa kuu sheegay f b i iyo argagixiso iyo wax adeer igu cusub maaha 30 sannadood baan f b i isku agnoolayn intaasna waxaa naga dhexeeyey communication iyo xiriir intay jeer dabcan inay baksadaan xisaab male khudbadayda everyday baan kaga hadlaa dadkaa waaweyn sirdoonka waddankan
ninka lambar 2-ga ah isagoo hor fadhiya baan waxaan ooda kaga qaaday intuu yiri been sheegay yiri dadka muslimiinta ma daba galno baan waxaan ku yiri beentaa way konton jeer baan aniga timaadeen isagoo fadhiyo maqlay nin loo soo diray inuu dadka muslimiinta maslaxo oo ka dajiyo qoladan sirdoonka wadankaana inaysan dhib ku hayn baan indhaha ka saaray wiil yaro hadeer garow ka yimi iguma handadi karo argagixisa tahay masaajidka khudbada akhriyo waa la fasiraa joornaalaha la iga qoraa media dhan baa la ii samaystay aniga lagu fasiro khudbadayda maalin walbaan saa u karbaasha yahuud iyo maraykan iyo kuwa ugu adag baan saa u karbaasha falastiin banaanka la soo taagnay waa difaaca ma ujeeda marka iyo magaraysa waa haddaad agagaarkayga ma ujeeda haddaan intaas nin ku baqaya ahay ma imaadeen media mana soo fariisteen horeyna waa u sheegay habaar laygu kari waa diinta haddaad wax ka sheegtid adeer waa is arkaynaa haddaad soomaalida weerartid waa is arkaynaa haddii aad soomaaliya dalka la yidhaha dhibaatadiisa wadidna waa is arkaynaa intaasaan dadka ku qabsadaa dadka aan qabsadana waa dadka manaasibta haysta waxaa soo raaca qofkii 3 shay soo weerara dadka meelahaas ka qayliyo qowqaayiinta horey igu daaleen konton jeer bay wax yiraahdaan waxbuu kufsaday caruur buu kufsaday kana lahaa hadda iftiin baa lahaa doraad bilofiil caruur ilaahay subxaanahu wa tacaala caruur iguma musiibayn cudurkaa ma qabo cudur xun oo khariban weeye ciddii qabtana allah ka daaweeye dugsi buu kufsaday kuwii reer somaliland baa dhihi jiray caruur uu dugsi u dhigay buu kufsaday caruur gabdhay mar waxay dhahaan gabdho marna waxay dhahaan wiilal yaryar dugsina weligeyba ma qaban maraykan markaan joogay dhakhtar baan ka shaqeynayay respiratory therapist ana ma ujeeda haddaan caruur kufsaday mid maalin iska dhigan wax yaqaano maxkamad iyo gaalo naagu kufsaday lahaa xataa ma akhriyi karaan kufsi iyo assault ma kala yaqaaniin ma kala garan karaan waa dulli iyo ku talagal inay ka tahay yani war ma nin naa kufsaday ama ilma kufsaday baa North America imaamka ahaan kara masaajid ka dhex taagnaan kara oo maalin walba madaxda iyo ugu sarreysa wadanka la kulmi kara waxaan la kulmaa magaranaysaa premierada waxaan la kulmaa madaxda chiefafka booliiska iyo nimanka sirdoonka haysta markaas waxaan rabtaa inay handadid oo igu handadid waxa ma ujeeda teewad dadka meelaha ka ay tamaan ajar baan ka helahay dhibiguma hayaane go ahead be my guest qofkii raba inuu wax iga sheego ku raaxaystaa maalin wax laga sheego go ahead aniga caydayda cibaaday ii tahay shaqadan nin dhaanta tumtay baa layidhi ilaaq dalbay waxaan u soo galay media saasay ahay waa saaxiibada ilahayn iska dah ma ujeeda marka ajar baan kaa helayahay adeer ii shaqee oo soo cay oo wax iga sheeg waxaa ku soo haray dad waxaa isoo wacay aad u badano ama fariimo ii soo qorayo message private oo lagu soo diray baad soo sheegtay message-ka private-ka ahi waa inuusan maagis iyo aflagaada ahayn wixii aflagaada waxaana u soo qaatay wiilka yarka ah oo qaylinaya oo lahaa waa la qabyaaladeynayaa iyo inaysan qabyaalad ahayn oo dadku uu xijinayo iyaga laftigooda qabyaalad iyaguna igu tunsan yihiin which doesn't exist gado anigu wax kama sheegin gado dadka difaacaan ka mid ahay odayaashooda iyo madaxdooda iyo kullina saaxiibaan nahay aad bayna ii jecel yihiin gado marka si gaara wax gaaro ay hadday khalad sameeyaan dee ciddii khalad samaysa loo joojin maayo waa la karbaashi dalka diinta iyo dadka soomaaliyeed wixii duulaan ku ah hadday reer gadood ka shaqeeyaan waa la sheegaya laakiin reer gadood baa etoobiya jecel aniga weligeyna lagama maqal ilaahayna afkeyga ka keeni mayo marka yaa dadka laysku dirin yaa been la afuufin yaa lays argagixin wiilka yarka ah oo cabdi iftina musiibada mushkiladeedu waxay ahayd soomaalida weerarka dadka ku ah oo uu la sheekaysanayo xog siinayo iyagii u soo raacayo xog baa soo gaartay ah inuu rabo inuu la hadlo xalay la ii sheegay oo berri aan ballansannahay waana la hadlayaa inaan soo dhaweeyo oo soo dabo oo ummadda soomaaliyeed inuu u qareemo oo luqadda ingiriiska ugu qareemo sida uu markuu soomaaliya ku hadlayo ugu qareemo oo kale baan ka rabnaa cabdi iftiin wax kale lagama rabo inuu hagaagaan jeclahay wiil kastoo soomaaliyeedna saas weeye inuu hagaagaan jecelnahay marka lagu naqdiyo ujeeddada xumaan iyo nacayb maaha
wax kale waxaa la jecel yahay inaa hagaagtid maxaa la isku handadi karaa marka FBI baa kusoo diray argagixisaa tahay waxaa kugu dhiga waa ogaan doontaa caruur baad la hadlaysaa mise nin oday just take it easy qaboojiya dhibka dhaafa handadaad iyo in la isweeraro wax macnaa ma kordhinayso khayr badan baa idin rajaynaya billahi tawfiiq asalaamu calaykum